Shuuka Cabdiraxmaan Odawa oo kamid ah dadka ku nool degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud oo la hadlayay telefishinka caalamiga ah Universal ayaa waxa uu ku eedeeyay website-yada Soomaalida inay si sharci darro ah sawirkiisa ay ugu adeegsadaan isla markaana ay ku sheegaan inuu yahay sawirka Axmed Cabdi Godane ama Sheekh Mukhtaar Abu Subayr oo ah hogaamiyaha Al-Shabaab wuxuuna xusay Shuuka Cabdiraxmaan Odawa in sawirkan uu yahay kiisa isla markaana magacaasi uusan lahayn oo uu yahay mid si sharci darro ah sawirkiisa magac uusan lahayn loo dul saaray waxaana uu sheegay in uu arintaas ku eedeynayo in website-yada Soomaalida ay ka dambeeyaan walaal waxaan ka cabanayaa arin ku saabsan aniga sawirkayga oo la qaaday oo la saaray Axmed Godane taasoo markii website-yada la galo oo aad godane.com aad tiraadid oo soo baxayo aniga sawirkayga aniguna waxaan ahay Shuuka Cabdiraxmaan Odawa mana ihi ninka sawirkii meesha la saaray magaca malihi laakiin sawirku waa aniga taasaan ka cabanaya oo caalamka oo dhan iyo maartay aan u sheegaya dadka islaamka in arintaasi ay arin fadeexad aniga igu ahla tahay Shuuka Cabdiraxmaan Odawa ayaa wuxuu intaa ku daray in sawirka ay adeegsadaan website-yada isla markaana ay ku sheegaan inuu yahay Axmed Cabdi Godane ama Sheekh Mukhtaar Abu Subayr oo yahay mid laga qaaday xilli uu ka soo goostay dhinaca Xisbul Islaam oo ka tirsanaa jiray isla markaana waqtigaasi uu ku sugnaa madaxtooyada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo warfidiyeenada oo kula hadlay soo goosashadiisii waqtigii hore Xisbul Islaam nimankii dhigi jiray taasoo ka fakaday oo u galay dhinaca dawladda kadibna aan sidaas aan nin sarkaal ah oo dawladda ka tirsan oo dawladda kamid ah marka waqtiga xagga aan jiray oo aan madaxtooyada dhulkaas joogay journalistayaasha iyo saxaafadda magaalada Muqdisho iyo caalamka kuwa ka socda intaba way yimaadeen wayna joogay ka ahaayeen arrimahaas marka arintaas waxaan u aragnaa arin anigana maartay la igu dhibaataynayo inay tahay oo wajiyaasha ay adeegsadaan nimanka maxaa la yiraahdaa ama la yiraahdo alqaacida ama argagaxisada dadku u yaqaanaan qorshahaygu wuxuu yahay codsi aan u jeedinayo caalamka iyo dawladda ku meel gaarka ah oo maxay ahayd aan codsanayo in website-yada noocaas ku shaqeysanayana wixii ay xaq u leeyihiin la siiyo aniguna arrinkaygaas lagu been fariimay nin target ah oo dambiile ah oo maxay ahayd ummadda iyo islaamka iyo caalamka dambiile ka la igu target gareeyay in maxkamadda isla kaana saaro oo maxay ahayd dawladda ku meel gaarkaana ay talaabo ka qaado iyo waliba caalamka maxay ahayd intiisa kale oo arrimahaas maardi ku shaqadan hadalka Shuuka Cabdiraxmaan Odawa ayaa ku soo beegmaya xilli muuqaalkiisa ama sawirkiisa si aad ah loogu arko mar waliba website-yada Soomaalida Cabdi Fataax Xasan Faarax telefishinka caalamiga Universal Guraceel